guddiga aad u mahadsan tahay run ahaantii maanta waxaan idinku imid inaan guddigan xogogaalnimada aan kala qaadano inkastoo tiimka Hirshabeelle ka socdaa ay aad ay brief gareeyeen howlaha ay qabsoomay meesha wax idin marayaan runtiina waqtiga yar oo aad isu timideen hawsha aad qabateen runtii waa ka muuqataa inay idinka go'an tahay inaad aad fikrado wax ku oola inaad keentaan haddana inaan mataqaanaa dhamaantiin aan idin wada maqlo aadan aan ugu faraxsanahay taasaan idinku imid waxa kale oo idinku imid inaan idin muujiyo taageero howl runtii weyn oo waddanka dhan la fiirsanayo laga warsugayo ayaa la idin igmaday in ilaahay idin fududeeyo tawfiiqdana idin waafajiyo oo talada fiican idin haleeshiisiyo inaan idinku taageero intaasaan idinku imid run ahaantii aad ay u fiicnaa lahayd aan u jeclaan lahayn aan u rajaynaynaa inay tiimamka naga maqanuna ay nagu soo biiraan laakiin adika waxaa laydinka rabaa guddigan waa guddi farsamo guddi siyaasadeed maaha adiku wixii garashadiina iyo aqoontiina iyo niyad wanaagiina ay idila noqoto inaad inaad ka baaraan degtaan waxaaba suurtagal ah arrimaha hadda tiimamkaas ay ku maqan yihiin maaha arrimo farsamo maaha waa arrimo siyaasadeed hadday xalismaan waxaaba laga yaabaa shaqadii oo dhammaystiranba inay idila aqbalaanba lianno haddii niyad wanaag iyo xod ogaalnimo arrintii lagu galo labadaas muhiim niyad wanaag iyo xod ogaalnimo waxa laga yaabaa taladu meeshay dhigi lahayn inaad dhigtaanba oo ay dhahaan mataqaanaa waa noo fududeyseen inay dhahaan ayaa suurtagala mid kale waxaan idinku dhiirigelinayaa xataa ayagoo maqan bal back channels iyo siday doontaba ha ahaatee concerns-ka jira iyo fikradahooda inaad aruurisaan dadka daneeyo dhan wada hadallada aad la bilowdeen ayadana aad ay dhiirigelinay u tahay saaxiibada Soomaaliya iyo deeq bixiyaasha waa stakeholder muhiim ah waayo ayagana fikradahooda si formal iyo si informal inkastoo taladu anagu aan leenahay oo ugu dambeyn taladu aan leenahay mas'uuliyadeedana anagu aan leenahay inaad ayagana bal aad xuuraamisaan waxa muhiim ah ugu dambeyntii waxa muhiim ah inaad noo tilmaantaan tubta doorashada ay ku dhacayso dad badan baa runtii calool xumo ay uga jirtaa doorashada nafteeda inay dhacayso inaysan dhacayn marka in doorasho inay dhacayso intaad jidkeeda muujisaan waxa laga wada hadlaa huba ay mataqaanaa tafaasiisha ay noqdaan runtii dadka halkan isugu yimid oo guddigan ka tirsan waa dad gooni iyo isu tag intaba wax ku ool ku ah kalsoonina lagu qabo laguna qabi karo waxaan rajaynayaa insha Allah taala ilaahayna aan idinka baryaynaa inuu hawshaas idin fududeeyo inaad dhexdiina muwaafaqo aad aad heshaan in talada fiican ilaahay idin haleeshiisiyo in wax ummadda Soomaaliyeed ay indhaha ku kala furaan ay idinka soo bixi doonaan annagana waxaan diyaar aan idinahay dhamaanteen waddanka oo dhan wixii la dhihi jiray maarta resource persons adika unbaa idin kaabayna wixii aad nooga baahataan oo aad istiraahdaan waxa saxagooda idinka dhiman inaan diyaar idin leenahay waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan aad aan rajo uga qabnaa ku baaqaynaa dhiiri gelinaynaa in shirka Dhuusamareeb inuu dhaco shirkaas haddii uu dhici waayo nasiib darro iyo calool xumo iyo rajo xumo ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay ay noqonaysaa inay sheekadu naga kala baahdaa ka dhalan doonta in meelaha hadda aanan filanayn ay taladu tagtay ay mataqaanaa yaa ka dhalan doonta in la soo farageliyaa ka dhalan doonta inaan u muuqano danan aan taladooda ku filnayn in la ku calaamadiyaa ka dhalan doonta in shirkaasu qabsoomane waxaa qayb weyn ka ah sida guddigan u shaqeeyo iyo niyad wanaagga oo muujiyo iyo talooyinka uu soo baxo annaguna siyaasiyiinta haddaan nahay waxaan ku dadaalaynaa in shirkaas laga soo wada qayb gala lana wada yimaado mudane wasiirada kale iyo xubnaha kaleeto aadan idinku bogaadinaya hawsha aad wadaan iyo runtii sida aad waqtiga yar tilaabooyinka aad qaadeen aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.